gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose oo xubin ka ah guddiga la dagaalanka cudurka COVID-19 ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa qalab isugu jira daawooyin iyo waliba shaambooyinka dhulka lagu nadiifiyo iyo gacmaha iyo waliba maaska afka lagu xirto iyo qalab kale gaarsiiyay maamulka degmada Afgooye. gudoomiye ku-xigeenka maaliyadda degmada Afgooye Maxamed Cismaan Cali ayaa gudoomiyaha uga mahad celiya agabka uu soo gaarsiiyay iyo baahida badan ee loo qabay qalabkaasi. gudoomiye ku-xigeenka oo arinta faahfaahinayana waxa uu yiri agabkaas oo ka koobnaa ilaa iyo agabka loogu talagalay ka hortagga cudurkan safmarka ah ee coronavirus. haddana waxaan ku sugannahay qayb ka mid ah meelaha ay ku sugan yihiin dadka barakacayaasha ah. dadkan barakacayaasha ah oo annada aan joogno kaan baxnaano waxay isugu jiraan dad ka soo barakacay Jannaale, dad ka soo barakacay Bariire, dad ka soo barakacay Awdheegle, dad ka soo barakacay dagaaladii ugu dambeeyay ee ka dhacay degmada Walaweyn. baahiyahoodana ma ahan kaliya in cudurkan iyo barnaamijkaas ma ahan waxay u baahan yihiin gargaar degdeg ah. waa dad u baahan hadda aad u jeedaan waxa ay fadhiyaan goob fagaara ah, wax hooy ma haystaan. wasaaradda gargaarka Koonfur Galbeed, wasaaradda gargaarka ee dowladda federaalka, maamulka gobolka waxaan ka codsanayaa horta in dadkan lala soo gaaro teendooyin ay galaan ay roobkii qorraxda ay ka galaan. waxyaabaha ugu muhiimsan oo hadda waxaan isleeyahay qofku uusan haysanin wax cunto iyo kii hataa meel uu